salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan waxaad kusoo dhawaataan qodobada ugu xiisaha badan ee aad ku daawan doontaan warka runsheeg TV-na waxaa ka mid ah xog cusub oo laga helayo diyaaradihii droonta ahaa ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde iyo nisa oo halis amni dalkan ka badbaadisay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ku heshiiyay dib u doorashada madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Roble wakiilka qaramada midoobay kala hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii ay u dhameystiri lahaayeen dhaqaalaha ay ku taageerayaan geedi socodka doorashada dalka hay-adda nisa oo shaacisay inay gacanta ku dhigeen shabakad abaabulayay qalqalgelinta amniga doorashada deegaanada maamulka koonfur galbeed qodobadaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan warka runsheeg TV haddii aad nagu cusub tihiin waxa aan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan marta YouTube channel-ka aad naga daawanaysaan ee runsheeg TV daawade qodob walba oo warkan ka mid ah aragtidaada qaybta hoose inoogu reeb la wadaag muuqaalkan saaxiibadaada si ay kula daawadaan aynu ku bilowno xog cusub ayaa laga helay diyaarado drone ah oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde iyadoo ay hay-adda nisa dalkan ay ka badbaadiyeen khatar dhinaca ammaanka la xiriirtay xog cusub ayaa laga helayaa diyaarado drone ah oo maalin ka hor ciidamada hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka ku qabteen garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde oo la rumaysan yahay in ay dalka kusoo rogi karaan halis amni oo xoogan in diyaaradahan la qabto ayaa waxaa la sheegay inuu suurtageliyay taliye qadar maxamuud qadar sanka oo ah taliyaha nisa ee garoonka aadan cadde oo bixiyay amarka lagu qabtay diyaaradahan oo kadibna ay ciidankiisa la wareegeen xog cusub oo baaritaano ah ayaa muujinaya in diyaaradahan ay si weyn ay isu shabahaan diyaarada ay ganacsi ahaan u iibiso shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha taas oo dhowr wadan ka iibisay marka la fiiriyo cabirka caadiga ah ee plastikada caaga ah ee lagu arko mid ka mid ah sawirada ay heshay runsheeg TV oo diyaaradahan waxaa laga fahmi karaa in ay ku cabir yihiin kuwii ay sameeyeen Mugen UAV oo ah nooca Mugen 360 oo cabirkeedu yahay 3600 oo sida ay sheegtay shabakad ka faaloota arrimaha sirdoonka iyo diyaaradaha oo aan duuliyaha lahayn oo lagu magacaabo Intel Wireless shirkadan ayaa waxay xarunteedu ku taalaa dalka Shiinaha magaalo ka mid ah waxaana diyaaradan laga iibin karaa sida ganacsi ahaan caalamka oo dhan in diyaaradahan lala xiriiriyo Turkiga maadaama laba qof oo Turkish ah ay la socdeen markii lagu qabtay garoonka ayaa xiiso leh sababtoo ah waxaa hadda ka hor adeegsaday kooxda PKK ee dagaalka kula jirta Turkiga sidoo kale waxa ay ka soo muuqdeen dukumentiyo sir ah oo muujinaya in kooxda Daesh ay hadda ka hor ay si sharci darro ah u iibsadeen diyaaradahan sida ku qoran dukumentiyada la helay ee ay Daesh dhowr hore ay baahiyeen waxaana diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ay ku iibsadeen miisaaniyad gaaraysa 1.1 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana qaab online ahaan ay uga iibsadeen shirkadan soo saarta diyaaradahan dal sida Soomaaliya oo kale diyaaradahan waxay ku soo rogi karaan halis xoogan sabab la xiriira inay hadda soo badanayaan kooxaha mintidiinta ah ee adeegsada taliye qadar sanka ayaa bogaadin badan loo jeediyay isagoona lagu amaanay in uu soo kordhiyay feejignaantan iyo intii uu noqday taliyaha nisa ee garoonka aadan cabdulle cismaan uuna ka hortagay halis xoogan xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa sheegtay inuu leeyahay diyaaradahaas oo aysan ahayn kuwa military balse loogu talagalay in lagu waraabiyo beeraha iyo in lagu buufiyo anshaxa wuxuuna madaxtooyada ku eedeeyay inay arrimo siyaasadeed dartooda u beegsatay sidoo hadalka u dhigay inkastoo bila Soomaaliya ay eedaas iska fogeysay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka shaqeynaya dib u doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillah Maxamed Farmaajo kulan dhinaca khadka internetka ah oo ay wada yeesheen madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdilaahi Dani ayay kaga arrinsadeen xaaladda siyaasadeed ee dalka geedi socodka doorashooyinka
iyo sidii ay ka yeeli lahaayeen hanaanka doorashooyinka Soomaaliya loo wajahayo iyo cidda ay tahay inay si gaar ah awoodooda isugu geeyaan. Saciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland ayaa gabi ahaanba ka tanaasulay fikirkii la xiriiray in uu u tartamo jagada ugu sareysa ee dalka, waxaana taa bedelkeeda isaga iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isku afgarteen in dib ay u dhisaan Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. In go'aankan ay gaaraan hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland waxa ay ka dambeysay kadib markii ay dhabarjibin xoogan ay ku sameeyeen mucaaradka, taas oo keentay amaba soo dedejisay in hogaanada maamulada Puntland iyo Jubbaland go'aan ay ku gaaraan inay si toos ah ula shaqeeyaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kana shaqeeyaan sidii dib isaga loogu dooran lahaa talada Soomaaliya. maamulada Puntland iyo Jubbaland oo taageera madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxa ay dhibaato adag ku tahay siyaasiyiinta mucaaradka qaarkood oo codad ka raadinayay kuraasta deegaan doorashadooda tahay labadaasi maamul, balse waxaa si toos ah u dhawoobi doona riyo ay villa Soomaaliya ku riyoonayso oo la xiriirtay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu mar kale talada Soomaaliya ku soo laabto, maadaama kol hore uu haystay codadka aqlabiyadda ah ee maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug, maadaama ay ka maqnaayeen labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland oo si weyn loogu loolamayay xubnaha ka imaanaya codadkooda, balse waxay xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin inay dhisaan Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, balse waxa ay sheegeen in kulan foolka-fool ah ay kula yeelan doonaan magaalada Muqdisho iyaga oo garowshiyo iyo raaligelinba ka bixin doona qaladaad dhowr ah oo ay qaranka ka galeen. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa durba waxa ila wareedyo ku dhow xafiiskiisa ay sheegayaan in uu bilaabay dadaaladii ugu dambeysay ee uu ku doonayo in uu ku hanto codadka ugu badan ee doorashada, maadaama kol hore uu xaqiijiyay xubnaha ka imaanaya dhinaca Somaliland ee golaha aqalka sare, maamulada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle, halka Jubbaland iyo Puntland hogaankoodu ay ku soo biireen ay amar buuxda ay siiyeen xubnaha ka soo galaya deegaanadaasi golaha shacabka in codadkooda ay ugu yaboohaan Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo. waxaa muuqanaysa in taariikh cusub ay Soomaaliya u qurmi doonto maadaama aysan dhicin madaxweyne talada Soomaaliya soo qabtay oo mar labaad loo doortay, hase ahaatee waxaa dhowr jeer hore dhacday in madaxweyneyaal soo qabtay talada Soomaaliya ay mar kale damaaciyeen inay qabtaan jagadaas, balse ay ku guuldareysteen. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo u saadaalinaya in mar kale uu noqdo madaxweynaha dalka, maadaama ay sheegeen in door muuqda oo la taaban karo uu ka qaatay arrimo dhowr ah oo la xiriira dib u dhiska ciidanka, hanaanka deyn cafinta ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale ka shaqeynta dib u dhiska ciidanka iyo xaqiijinta xuquuqda ay ciidanka leeyihiin. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay wakiilka qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyaga oo ka wada hadlay arrimaha geedi socodka doorashooyinka dalka. wasiirka koobaad ee dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada Midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha, kulankan ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta doorashooyinka dalka, taageerada farsamo iyo dhaqaale ee beesha caalamka ay ka geysan karaan hanaanka geedi socodka Soomaaliya ee doorashooyinka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Maxamed Xuseen Roble iyo James Swan ayaa isla gartay sida ay muhiim u tahay in la dedejiyo howlaha doorashooyinka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa horay ugu booriyay dowlad goboleedyada dalka ka jira in sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan qabashada doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka 5 November ayaa walaac looga muujiyay dib u dhaca doorashooyinka dalka, waxaana madaxda maamulada federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka loogu baaqay in ay si degdeg ah u dhameystiraan
doorashada loo dhan yahay inta aan la gaarin dhammaadka sanadkan 2021 sidoo kale beesha caalamka ayaa ugu baaqday maamulka galmudug in labada kursi aqalka sare ee ku dhiman ay degdeg u soo doortaan saaxiibada beesha caalamka Soomaaliya waxay sidoo kale sheegeen in ay si dhow ula shaqeyn doonaan heshiiska ay gaareen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble dhaqangelintiisa waxaan ugu baaqaynaa labada hogaamiye inay si degdeg ah u fuliyaan qodobada ay ku heshiiyeen oo ay diiradda saaraan arrimaha mudnaanta u leh qaranka gaar ahaan dhamaystirka geedi socodka doorashada ayaa lagu yiri qoraal beesha caalamka toddobaadkan ka soo baxay doorashada golaha shacabka ayaa si horudhac u bilaabatay guud ahaan dalka iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu wado dadaalo uu ku doonayo in si rasmi ah loo gudagalo doorashadaas dhowr jeer hore dib u dhac uu ku yimid hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigeen shabakad isku xiran oo al-shabaab ah hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigeen shabakad ka tirsan ururka al-shabaab oo isku diyaarinayay qalqalgelinta amniga magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taliyaha nabad sugidda maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Xasan ayaa sheegay in tirada xubnaha la qabtay ay gaarayaan 12 xubnood isla markaana ay hadda ku jiraan gacanta laamaha amniga cadaaladana la horkeeni doono sidoo hadalka u dhigay shabakadan ay ciidamada amniga ee NISA ay qabteen waxaa ku jira dad qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo ciidamadu ay baaritaan ay ku sameynayaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed sidoo kalena xarun wax gobolka Baay ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Runsheeg TV-na waa inaga taad ku mahadsantiin daawashada warka midkiisa xiga nabaddiino